arrintaasi ka hadlay madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre isagoo gaar ahaan carabka ku dhuftay xukunkii lagu qaaday 12kaasi wadaad. wixii aniga ay ugu yeelan kareen waxay ahayd xasiba iyo weydiistan xasigii inaan siinin waxaan u goostay qalada wadanka inaan mintoxsanin aan weligayba aan u bandhigo ama dadka Soomaalida amaantiisa ama guddiga sare oo dowladda u bandhigo ama aan ula bandhigo dowladda madaxdeeda consigliere ministry waxa la yiraahdo council of ministers waxa la yiraahdo markaas bacdama xaajooda ay cuslayd waxay la noqotay inay laga maarmaan tahay in aan u bandhigo guddiga sare oo dowladda go'aankoodana inaan fuliyo sidii xaaladaha ay jirtay hadba wixii taladay goostaan haddaan u bandhigayna waxay garteen in ayan xasi nimankaas mudnayn aniga waajibaadkay waxay ahayd go'aanka muxuu ahaa guddiga inaan fuliyo markaana sharcigii sidii u suray koobku xukumay isagoo shaqadiisii kadib horay uu watay saas bay u suurageli kareen. United Nations baa waxay markaa soo saartay baaq waxay ku magacaawday sanadka 1975 International Women's Year sanadkii caalamiga ah ee haweenka adduunka oo la simaayay marka saddex qodob oo waaweyn baa la soo saaray equality sinaan development horumarin iyo peace nabad dawlad walba iyo urur walba oo haween يعني waxaan ahayn sponsor by the United Nations marka arrin dawladeed bay ahayd ma ahayn wax urur iska wataan package-kii baan soo qaadanay waxaan nimiday wadankii waxaan markii dambe noola kala qaybay region walba Africa Asia inay shirar regional qaataan Soomaaliya lagu qabtay shirka oo preparatory committee ay maamulaysa dhinaca kalena waxa socday sharci oo la yiraahdo ahwaal shakhsiya ama sharciga qoyska oo muddo badan buu ku dhaxmeermeeraysanay dawladaha Carbeed oo Islaamka oo laakiin u janjeera hanti wadaaga waxa kamid ah Suuriya waxa kamid ah Iraq Cadan marka waxa la yiri ahwaal shakhsiya ama statuto personale ama sharciga qoyska qof walba si ha u yaqaanay afar qodob buu ka koobnaa qodobka socialka oo yani xadidaad la xadidayo ragga iyo guurarka iyo yani cadaalad darrada dumarka ku dhacayso waxyaaban hadda maanta la wado kootada iyo adduunka iyo qoyska maartay sinaantiisa la sineeyo qodobka afaraad wuxuu ahaa qodob aad xasaasi ah wuxuu ahaa dhaxalka qodobka dhaxalka inay gabadha iyo wiilka ay u siman yihiin wixii dhaxal iyo wixii xuquuq ah yani bulshada ay ka tirsan waxa dhacday marka maalin baa waxa la yiri qabsada maalinta haweenka 15 kama yahay annagana Soomaalida dumarkeen waxna maalinta haweenka ee dumarka Soomaaliyeed waxaan ku beegnay 12 Janaayo 12 Janaayo sidaad ogtahay waxay ahayd maalintii ha noolaatada leegadii ay dagaalamaysay oo gabar xawtaa kale yiraahdo lagu dilay bartamaha xamar oo gabdho badan oo maartay Soomaaliyeed oo qaar hadda nool timir ukaashi la xirxiray marka munaasabada ayaan maartay dooranay symbol ahaan 12 January way package-ka United Nations kana waan wadanaa golaha sare aan tagnay Maxamed Siyaadaan u geynay waxaan dhahnay arrintaana jirto waxaana doonaynaa baan iri inaan dabaal degno okay go ahead waxaan sameynay olole cajiib ah gabadhi pilotka ahayd tii taqtarada ahayd tii askariyada ahayd name it all walk of life yani dhinac walba oo nolosha bulshada gabdhii ka tirsanayaan waxaan sameynay banaanbax weyn oo stadio Koni la isugu tagay gabdhii baareed bay galeen xubin walba dumarkii Soomaaliyeed dhaqayb kibay muujiyeen gabdhii mutacalimiinta ardaydii gabdhii secondary-ga dhigana adigu meeshii waxa ka dhacay dawladdu si cajiib waana ka masraxay stadiumka marka intaan la imaan ayaa waxa dhacday golaha sare oo kacaanka uu Maxamed Siyaad hogaaminay in la yiri war maanta dumarkii baa dabaaldega United Nations waxay soo saartay qodobo maxaan u qaban karnaa lagama fiirsan sharcigan hal aqriyo sharcigan mihirgeli karaa يعني emotion با maamulka dhan dalka
emotion baa lagu maamulay waxa yiraahdo baas marayna sharciga just like that heerka qoys wuxuu yimid goobtii buu yimiday madaxweynihii iyo nimankii golaha sare kacaanka kulligood iyo golihii dawladda khudbada la qaatay aniga furay personally waxaan maartay in yar brief yar siiyay in maartay sanadkan uu yahay sanadkii ururka haweenka markii dambe xasan abshir baa gadaashay qaatay oo duqa magaalada ahaa ani asaga labada dhinac baan kaga taaganahay madaxweynahana bartankeenu taagan yahay markii xasan abshir ku soo dhaweey madaxweynaha hadda stadiumkana madax mahane wax kale meel banaan oo muuqdo ma jiro waa bari adiga wax kasta sheeg madaxweynaha khudbad buu qaatay wuxuu ka hadlay wax aan president ahayn adduunka laga maqlin caalam islaam annagana nagu noqotay surprise ma garat yaab ma ya farxad iyo surprise wuxuu yiri maanta wixii ka dambeeyo hadda ilaahay hay wacdaaba dambe sheego waan ag taagnaa wuxuu yiri maanta haweenkii buu amaanay wuxuu yiri waa xubinta kacaanka maaragtay ugu firfircoon aabooyinkii buu kondaam gareeyay wuxuu yiri maanta wixii ka dambeeyo yiri wax la yiraahdo nus ma jirto ma garatay wala rubac wala tumun ma jirto rag iyo dumarka waa siman maxamed siyaad barre kuma u ekaysanin intaa annagana farxad baan la dilaaci rabnaa mashcaarad laakiin wuxuu galay bad kale oon annagana qusayn wuxuu yiri bal diinta islaamka dib ha loo dayo waxaan maraynaa 1975 intaanan rasuulkeena maxaa sallallahu alayhi wasallam imaan gabdhaha waa la aasi jiray carabta quraysh quraankii baa yimid wiir mahad haka gaadhay waa laga maartay waa laga mamnuucay ayad baa ku soo degatay intuu sheegayay okay bay ahayd wuxuu yiri muxuu ahay ayad walba events ka markaa imaanay ayaa bedelaysay virtually quraanka boqolkiiba cotton waa isbedelay buu yiri ma garat haddana waxaan marinaah uu yiri 21st century qarnigii 12 ha 1975 baan maraynaa marka sidaa darteed waa simantihiin waaw garoonkii dhan baa isqabsaday ma garat aniga waxaan ku dhawaaday asaga dhan intaan qabsado aan dhulka shaka buuxiyo mana garanaynin annaga sharciga qoyska xagga baabka iyo islaamka ama diinta weegi ku xiga banaan bax weyn baan sameynay qamiistan banaan baxnay jimcaheedii oo masaajidii xamar la isugu yimiday ayaa tii ugu dheereed ka dhacday waxa qabsaday dhalinyar masaajidii bay qabsadeen waxay tarjumeen khudbadii madaxweynaha oo sideedii aan waxba lagu darin waxa meesha maartay ka dhacday marka dood diineed oo madaxweyne muslim oo islaan oo ulil amri islaan ayaa wuxuu yiri ragay dumarka waa siman yihiin ilaahina nama simin khudbadan madaxweynaha tiriyo halkiiba maartay waxa ka kacay buuq maalinta maxamed siyaad ceel jaalow jiray markiiba taar baa loo diray waa la ogeysiiyay magaaladii waa laga qabsaday magaaladii waa laga qabsaday amar baa la bixi bulsi mataar inay masaajidada gasho oo mikrofoonada demiso oo dadkana dareeriso oo wixii khudbadeynayna la soo xiro sidaaba waxa lagu xiray 10 dhalinyaro oo wadaad 10kii isla wiigi waxa la geeyay maxkamadda waxaan ka kale iloobay 1971 kacaanka kan wuxuu ka soo guursaday Suudaan sharciyo la dhigi jiray 26 article qofkii banaan baxa waa dil qofkii hebel waa dil wax alaale wixii subversive oo dawladda ka soo horjeedo waa dil article 54 waa tay maaragtay waa tay ragii golaha sare dhexdooda lagu apply gareeyo Allah u naxariisto salaad gabeeri ceenaashi dal ay maaragtay ku dhacday falaada sharcigaas oo ahaa marka sharciga wadanka yaalo dawladda sharciga bay u tiigsatay wadaadadii waa dil baa lagu xukumay mar alaala markii dil lagu xukumay ayaa maxay ahaday
wuxuu yiri shir degdeg ah tiyaatarka la isugu yimaado ururadii oo dhan wuxuu u yeeray muftiyiintii culimadii ugu waaweyneed ee magaalada xamar ku nooleed waxaan ka xasuustaa Sheekh Ali Suufi waxaan ka xasuustaa Sheekh Aadan Sheekh Cabdullah waxaan ka xasuustaa Sheekh Maxamed Iimaan waxaan ka xasuustaa Sheekh Abuukar Maxla Suulay yani adigu muxuu ahaay culimadii ugu waaweynaa hadaa Sheekh Ali Suufi waxa lagu waday raar miskiinka wheelchair khudbad buu la kacay as usual aniga xasan abshir waa ag taagana wuxuu yiri deen baa layga sheegay waxa la yiri dawladda Soomaaliya waxay dil toogasho ku xukuntay culimo waxaan rabaa buu yiri inaan weydiiyo ummadda Soomaaliya culimada aan aniga qabtay ee aan dilka ku xukumo waa kuwe war culimadii dalka xukumtay waa kuwan hortayda safan Sheekh Hebel istaag Sheekh Hebel istaag Sheekh Hebel istaag magacyada dhan buu tilmaamay culimada aan dilay waa war dhalinyaro saqraamiin oo ciyaala suuq oo imberelida caalamada dabada ka wado oo maartay qalqal dawladda galiyay ayaan xiray oo dil ku xukumay waa kuwana waxaan ku sheegaa ducaale aniga at that time diinta ma aqoon laakiin hal nin oo wadaado yiraa waa beenta hal nin wadaado yiraahdo waa qalad kidigood way wada aamuseen maxaa u malaysa marka shacabka Soomaaliyeed magarat marka lobin baa bilaabmay wada hadal waa loo tagay saad ogtahayne dawladda maartay Maxamed Siyaad golihii sare wuxuu siiyay full authority amnesty-ga inuu leeyahay inuu maartay waxyaabo qaar kood asaga power u leeyahay marka waxay ku magacaabeen full power oo in ayaga waxba ka qaban karin